doonaysaan ma in dadka uqdodaysan ee waxba barin lagu sameeyay gura ku biirnaan doonaysaan war xaq qofku halku xaq darro ku dareema dib ugu filan adaab maanta hargeysa ka weyn oo aan gali lahaa garan maayo hooyaday baa la igu hor dilay war in hooyaday feerjir lagu hor garaaco hortayda lagu dilo waxaan ka jecelahay inay xabad inagu dhacdo garsoorka jeegisay la tigsa Faysalow irka hadad ila baxaysay ila bax Faysalow arrinka hooyada iyo arrinka aniga igu dhacay midna hoos ma dhigayo ma libiqsan doono dhibaatada iyo tacadiga iyo dulmiga naloo geystay kama libiqsan bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta badan bulshooyinka Soomaalidu waxay la socotay in tacadi nagu dhacay oo la arbishay oo ani hooyaday bana la dilay oo aan la wadaagay baraha bulshada iyo qaybaha warbaahinta kala duwan waxa la sugayay dadkii madaxda u ahaa dadkiina laayay ciidanka markaasi meeshaan tagnay ka ahaa waxay ahayd in jawaab loo wada dhag taagayo oo bulshadu si weyn u dhowrayso oo la wada filayo oo la isleeyahay maxaan ku dhaadayay waxa ka soo bixi doona wax ama garwaaqsi ama garow waxa inanta iyo hooyadeed ku dhacay ah nasiib daro xalay waxa aan midiyaha ka arkay oo soo taagay afayeenka ciidanka Faysal Xiis iyo saddex kale nin oo runtii astaama saraakiileed ka muuqdaan laakiin degabigoodu deedaniya oo aniga isu soo kay wadaag taagay si ay ugu jawaabi lahaayeen waxaan halkan soo fadhiistay maanta inaan sidii wax u dhaceen way cadayde aan bal eedaas aan salka iyo raadka oo toona lahayn abuurka inta faraha leeg maxaa la yiraahdaa la igula kacay anagoo waliba dilan anagoo jir dilan anagoo waxaan qabnay cidina soo eegin in maxaan ku dhahday halkan maanta inta xalay la soo istaaga la yiraahdo baabuur bay xoog ka soo gashay meesha Faysal Xiis wuxuu yiri saacadu waxa ay ahayd 6:49 minute 7:11 daqiiqo la xilliga inantu meesha soo gashay si ay u waafajiyaan xilliga gaarku ugu feejigan yahay ee maqaariibta baabuurta de soo gasha ama laga shaki karo ama la maaragtay la ogaande aan sida harka cad u adeegina ma aanay service bixinay laamaha ka duwan ee dawladdu wuxuu yiri nasiib wanaag xabad kuma ridin wuxuu yiri intay soo degtay askariga dhawanaanaysa wuxuu yiri garsoorkan la tigsanayna nootaay sharciye saxiixeen wuxuu yiri cid baa arrinkeeda dabada ka soo riixaysay waxaan leeyahay anoo arrimaha soo qodob dul istaagaya ta koobaad ah saacada aanu meesha nimid ee uu ninkan hadlay ee Faysal Xiis ku sheegay inay ahayd 7:11 daqiiqo la ama 6:49 minute inay ahayd abaara 4 iyo dheeraad oo aanay xataa 5 gaarsiisnayn marka salaada casar laga baxo sida ay ku cadahay maraga kaliya ee anigu aanan filaynba u bartiisa ku daabacay ee Xamse Cumar ku joog wiilka la yiraahdo number 2 wuxuu yiri waxay xoog ku soo gashay gaarka kuma soo galina baarkin kan galay oo leeyahay dhaqaajin waliba halkan dhiga oo halkan digi lahaa intuu ii tilmaamay waliba igu hore u gal oo igu hada garaysay inay yaro kibir badan baa tahay wuxuu yiri askari bay dhabanaanis qof kasta oo aqli leh wuxuu garanayaa in aan inta qof shicibihi xarun dawladeed u yimaado oo uu soo service doonto aanu cid waliba ku dhex dhabanaanin karin de wax aqliga gala in lagu hadlay waxay ahayd in been la sheego been run oo eeg la sheego waxay ahayd in la yiraahdo si fiican waan idinka adagnahay inta meel la soo istaaga la yiraahdo arjuuqday ku yiri juuqde laakiin may hayn in la yiraahdo
يا halkaasay xoog ku galeen ya halkaasay askari ku dhabanaanisay ya halkaasuu ciidanka booliisku wax ku baahnay waxaad loola yaabaa runtii jawaab bulshada iyo annaga iyaga dhibanayaasha ahayn iyo eheladaydii toona ay ka filayeen ciidan kara maaha noomana cuntanto waxaanay muhiimadu tahay adar mil dushiisa lama dhayo faysalow adigu waad hadashay haddii mas-uuliyad ku saaran tahay oo mas-uuliyad qaran ku saaran tahay gurigaaga iyo kaayagu intay isu jiraan wad og tahay oo si fiican baad noo garanaysaa xalay luuqad kalead ku hadlaysa intaad noo timaadaad eegi lahayd waxaanu qabno laakiin hal libaax arkaysaa ma godlato hal libaax arkaysaa ma godlato marka aniga hadalkaagu arrinkaygana ma daadifayn karo waxaan qabana ma nabaradan qabnana ma afuufi karo nagama biin karo qofku waa inuu feedback kaga soo noqday eegaaye beedkaad ka hadashay ee aad anaga noogu jawaabaysay aad soo gasheed daadifaynteedii iyo duudsigayga iyo dulmigayga u soo gashay waxa faale lagaaga dhiibtay baa marag cad noo ah waxaan kugu boorinayaa inaad ku laabato kuguma ogi damiir ku laabtay oo adiga iyadoo gurigayga kaagu inta isu jiraan aan adoona soo dul joogsan aniga iyo hooyaday gacan ciidan ugu dhacday oo nabaradayadii iyo wixii naloo geystay waxna dhaqaatiirtu cadeeyeen waxna ay kuwa naga muuqday korkayga ka muuqday yihiin aad arkayso daadifeeyay haddii aad maxaan ku dhaday damiir ku jiro aniga maanta horta iimaad jawaabteen adoo gurigaagu inta ay jiro aanadii soo galin waxaan intaaba ku soo dhaafaya beeni raad male beeni raad male afar nin oo waaweyn oo ninkii intuu jeelka iigu yimid taliyihii qaybta Muuse Xasan Kaahin intuu jeelka iigu yimid telefoonkayga un priority-ga siiyay ee janan ku xigeenku soo diray ee aan maxaan ku dhahday oranin maxaa qabtaan uu ka mid yahay xalay ku ag taagnaa shaarka ciidanku maaha kuwa dadka lagu bahdilo oo wax bulshada loogu adeego cashuur baanu bixinaa magaaladan ku dhalanay baanu joognaa in la yiraahdo nabaradayada iyo wixii loo geystay gacan saarka nagu dhacay la duusiyo ma yahayn waxaan mar kale maragu qabsanaya bulshada reer Somaliland oo si fiican u taqaana axmednimada iyo anshaxumada boolisku kula kacaan cidii ay haleelaan anshaxumadooda dadka si fiican u yaqaaneen la kulmay iyo arxan daradooda ayaan marag cad u qabsanaya haddaan askari dhabanaaniyay 24 saacadood ma xidhnaan laha haddaan askari dhabanaaniyay si sibiqo la doonay in xarigaygu baxo meel lagu soo deyn laha dee hadal iyo wax la yidhi waxba laguma dhaafee nabaradaanu geysanay iyo dhaawacyadaanu geysanay waanagan hadlaynaa halala hadloo hana la tuso oo ehel baanu ka dhalanay loo keeno anaga laakiin sharka dawladana lagu dilay aniga bahay waxa uu kamid ahaa markii qaranka Soomaaliya qaranka ciidankii qaranka Soomaaliyeed markii Soomaaliya burburku ka dhacay aabay wuxuu kamid ahaa ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM 1994 ayaa aabay aniga Hargeysa lagu dhex toogtay waa ayaan daro in maanta mar kale aniga niman calool waaweyn intay meel isu soo kay taagaan oo darajooyin isu soo kay sudaan ay yiraahdaan 2021ka 2021 sano kadib 12 bilood baan jiray maalintii aabahay la dilay 26 sano kadib dilkii aabahay in la yiraahdo iyadan nasiib wanaag hadaan xabad ku dhufan Somaliland waa beelay isu yimid qaran haduu jiraan cadaaladdeedaan heli lahayn lama maacay intaasoo meelood maxaan ku dhaday intaasoo waxa la yiri laakiin waxaan leeyahay Faysal iyo nimankii ag taagnaaba waxaan leeyahay maqaar saar waxaad ku lumi karaa ma jiro wixii geysateen ee shaarka dawladda ku geysateen idinka maxaan ku dhaday ka jawaabi doona anigu laamaha cadaaladdan ku maqnahay kamana hari doono wixii aniga iyo waliba hooyaday nagu dhacay
wax maaragtay garsoorka la waafajinaya iyo wax inta la yiraahdo in lagu baraq jabin karana ma aha anagu dhibanayaal baan nahay aniga hooyadayba waa la dilay shaarka dawladana lagu dilay inta shicibna dilay oo dhaqaaqay naga mutagin waxa weeyaan inta meel la soo taagay dadka waxa loo geysto la maacmaaco soo baan leeyahay inay waxa soo kale dhaqanka Soomaalida hablaha iyo haweenkaba xurmadooda ilaaliyay in anaga inta xijaabadina laga dhigay anigii hooyadiiba timaana jido jidniisa ligan lagu galiyay in la yiraahdo askari bay dhabanaanisa askarigan dhabanaaniyay cadeyntiisii iyo day anaga dhibaaxooyinkoodii waa kuwa naga muuqdee iyo wixii nagu dhacay cadeyntoodii waanu la imaanaynaa wixii ku dhacay cadeyntoodii dhibanayaasha la yimaadaan mar kale shicibka booliiska Somaliland si fiican baa loo yaqaan inta gabadha askar dhabanaaniso aanay 24 hours xorriyad ku hesheena cid kasta maraka ah anaka waana la dilay waana la daandaansaday waana la xiray waana la jir dilay si bahalnimo laba jirkeyga loo dilay wali jirkeyga qaybaha hoose aan mariyaha ka qaadi kareynin de waxaan leeyahay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah faysal xiisa wadi lagu yiri sidaa dhe oo tiri anaga waxba naga mi bedelin waxba naga mi bedelin ilaa darguudkiisa lama dhayo waxaan ku leeyahay marka xitaa hadlaysan inta been sheegto been run oo eeg sheeg markasto ay dadka taacadi ku dhacaan waxa u sameeysan waji kale xalay marka hadlaysa hadalada waxa kamid aha ama cid kale dabada ka riixaysay ma waxa doonaysa inaan cuqdad qaadno oo bulshada Soomaaliyeed kala jeclaano ma waxa doonayseen in anagu reer meel degan oo wadankoodii ku noolo magaalada ku barbaareen ku dhasheen aniga hooyadayba Hargeysa ku dhalanay oo inta dhex joognay ma waxa doonayseen in maxaan ku dhaadayay waxyaabaha ku tiri ku taanka iyo waxyaabaha bulshada u adeegsataan ee warbaahinta qaarkeed idinka qaxeen ee ilaa maanta guryahoodii ugu soo guriyo noqon kari laayihiin ee qaarkood waalidkooda dhintay u iman laayihiin ee qaarkood jeelasha ugu caadeysateen ila moodayna iyagii xabsigu isa soo raaceen markay dhasheen waxa doonaysan in qaabkaas oo kale anaga xorriyadeedii iyo jiritaankayga ku lumisaan waxa doonaysan in magaalada idinka tagno ma waxa doonaysan in majara habaabin ku sameeysan dulmiga nagu dhacay oo waji kale u yeeshaan anagu cuqdad ma qabno dadka Soomaaliyeedna ma kala jecelin dadkana moodaysan ma nihin xaq waxaan u leenaynaa lama cadaaladaan ka eeganayna lama cadaalad hadii wax noo qaban waayana Somaliland waa beelaysi yimid 1993 ba berbera 1993 ba boorama lagu heshiiyay shir beela kamidaysan yihiin oo samaroon marti gelisay oo isaaq tagay oo marti ku ahaa isaga laftiisu wixii la isla soo qaatay waxay ahayd in sharaf iyo xorriyad iyo jiritaan lagu noolaado war wixii ummadu la haydeen waxbaan u dagaalanay ee qarankii u burburisan ma waxay ahayd in maanta anaga inta halkan lagu dhaxduusiyo meelan u dacwooniyo meelan u ciirsanay baanu garan weyno maxaa doonaysan ma inaan fataano nida Soomaaliyeed baanu aaminsanahay maxaa doonaysan ma in noor baadhaan oo calool baadhaan maxaa doonaysan wargii meel Soomaaliland wax kaga sheegay oo aan ahayn araada guud ama warbaahinta ama dadka kale ay shaqada ku leeyihiin shaqadayadii ah ee aan wargii aan meel Soomaaliland wax kaga sheegay iyo meelan ku dhibaateeyay iyo meelan nimanka ciidanka laftooda wax ugu sameeyay oo aan ahayn in iyagu inta kibir lagu soo doonteen nabahdileen ma jirto waxay inaad hadii lagu yiraahdo oo lagu yiri sidaa dhe annaga ciidanama ay oran dibtan qabno ayaa na faraysa inaanu hadallo dibtan qabno ayaa na faraysa inaanu hadallo adigana shaqada iyo mushaharka qaadato iyo dadka ku soo diray iyo kuwa ku ag taagan kula sidaa dhe xariba hadalka ku hagaajinayay ayaa ku farayay inaad hadasho haliba xalkaysa ma godlatay been sheego been run oo sheeg Faysal Xiiso hadii lama cadaaladda iyo garsoorka aanu anagu la tiigsanay dhibaatooyinkii nagu dhacday ay waxba nooga qaban waayaan inamadii reeraay anaga waxna yeelay ee shaarka idinku u soo xidhateen
darxumada iyo soo jeedkay qabaan shacabka ka jaray cilqabayaasha ah ee idinkuna tiraadaan marka dadka soo cuntaan sidii bahalaha annaga idin hadli doona mushaarka kaliya waxa ku qaadataan ay tahay ilaa hadii umada dhaxootiin oo madax qarantiin annaga arinkayga iyaga arinkayga iyo arinkooda ay soo eegi lahaydeen cabashadeedii la waxay soo gaadhay laanta ugu sareysay waxa weeyaan hadii annaga arinkayga waxba laga qaban waayo oo sida direyskiina lagu dilay nalagaga gar qaadan waayo waxa dhici doonta anaguna eelaanu ka dhalanay oo reeraanu ka soo jeedna oo reerihii heshiiyay ee wax isku darsaday baanu ka mid nahay haday taasi dhici weydo oo dawladda iyo inamada reerada u shaqeeyay naga gar qaadan weydo oo waxa nagu dhacay la eegi waayo reerahoodii baanu doonan doonaa deetana qaranku iyada kaga fool xuntay oo Soomaali weyn marxaati u tahay oo reer Soomaaliland marxaati u yihiin oo ceebtoodu dibadda taalo ay arrinka gacanta la soo gali doonaan haddana maanta arrinkayga gacanta la soo gelin hadii lagu yidhi hadal Faysalow anaga dhibaatada nagu taala iyo hooyaday feerjiribka lagu garaacay iyo aniga dhibaatada iyo dilnimaha wajigayga loo geystay ayay farayaad inaan hadlo ee waxa weeyaan aniga dhibaatada shidaalka igu shubanaysa idinkan waxa shidaalka isku shubanay idinkoo darajooyin la aniga inaan yara isu soo kay wadaag taagteen waxa weeyaan in inta dadka ciidanka tiraadaan dadka soo marka damada dadka Soomaali weyn ku shaambadaysaan Soomaali weyn deed dulmi ba xuduudo u kala samaysateen oo la haydeen dulmi baa nagu dhacay anagu dulmi dhacayna garan mayne dulmigii baa anaga maanta nagu dhacay a sheegi jirteen dib ku beelu ka jira anagu ma aanan aragay musabixi markii aniga aabahay la diray 1994 wasiirka arrimaha gudaha ayuha iyo amniga maanta marka aniga leeyahay xabad nasiib wanaag bagaan xabad kugu dhicina waa laanta u sareysa ee wadanka madax meel ka sareysa oo la taabtay ma jirtay Faysal xiisa daladiisa waxa kamid ahaa hoodoy lama soo xiriirin hogaanka cabashada war hogaanka cabashada ilaahay baan ku dhaariyay inta gar qaadaan oo gar islaam qaadaan bal dadka dhexnoo ahaado hogaanka cabashada ma jananka ku xigeenka ciidamada ay ku simii jananka ciidamada ay wadanka ba ka si jananka aba ka sareeyo ka udhi bise hogaanka cabashada sareeya wana garso baaritaan madax banaan baarinkayga lagu sameyn doona wixii nagu dhacay baaritaan madax banaan iyo komishanka xuquuqul insaanka iyo garyaqaanada iyo warbaahinta iyo eheladayada ayaa ka hawlgali doona haday inta dadka tacadidaan shaarar kale u xidhaan haday inta dadka tacadid waxa muuqaalka ka xiga ee aan anigu halkan u soo galo ee maxaan ku dhahdaayay waxa iyaga waxba laga qaban waayo ee aan barta la soo istaago waana urbaadaysaane waxa idaan naga filaneen baa naga keenan doona waana calool baadaysaane waxaan umadu naga filan dhagay far la yiraahdo waxa barateen dad inta dhibaataysan carari mayna ilaa aan aarsano carari maayo ilaa inanka iyagu inanka yaraayo hooyaday feerjiribka ku garaacay qabto feerjiribka soo garaaco waa wallahi inaan carari oo aanan argaysan ku dhalanay ka tagay oo aanan dadka gardaamisana geeriyaha waalidkood iman waayay aanan ka mid noqonaynin oo aanan dhibaatada iyo tacadiga sheegaysan ma in dadka cuqdadaysan ee waxba barin lagu sameeyay gura ku biirnaan doonaysan war xaq qofku halku xaq darro ku dareema dib ugu filan adaab maanta hargeysa ka weyn oo aan gali lahaa garan maayo hooyaday baa la igu hor dilay warin hooyaday feerjir lagu hor garaaco oo hortayda lagu dilo waxaan ka jecelahay inay xabad inagu dhacdo garsoorka sheegaysa ila tigsa Faysalow ilka hadad ila baxaysa ila bax Faysalow arrinka hooyada iyo arrinka aniga igu dhacay midna hoos uma dhigayo ma libiqsan doono dhibaatada iyo tacadiga iyo dulmiga naloo geystay kama libiqsan doono halka u sareysay cadaaladda isla gaari doona cadaaladda ilaahay been isla gaari doona cadaaladda caalamka dhex wareegaysa ictiraafka ku weydeen ayaan isla gaari doona meel kasto oo aan isla yahay hiil iyo garabaad ka helaysa ayaan hiil bidi doona ayaan garabka soo saari doona cadaawadda Soomaaliland noo gelinaysaan ayaan falowgeeda qaban doona Faysalow gurigaaga iyo kaygu intay isu jiraan wada ogtahay adoon soo hor istaagin anaga meelaha nooga soo hadasho oo ninkii saldhiga dhexdiisa nagu baaray ayri kama kortaaga didan moobilada kan ee numbarkayga garaacay ee numbarkayga ku jiro si uu uga dhaxdhaco saldhiga ayaa garabkaaga taagnaa oo hoostaada laga hadlayo lagu lahaa waxaade Cabdi Madoobi war ka daayay maraga cad Xamse Cumar ku joogna furay ilaahay maragiisa marxaatigiisa janaha furo inaan ka garan maayo waa qof islaam oo meesha taagnaa ka daayay ciidanka ka amar qaadan kariyo war ka daayay gabadha gacanta oran kariyo ayaa dar meesha maxaan ku dhahdaa ay ku soo garab taagnaa
marka haddii iskarab istaagii iskarabsi haddii aniga aabbahay xabaal ka soo hubsateen oo istiraadeen waa agoon oo istiraadeen cid idinka daba hadli mayso oo istiraadeen cid idin soo agmari mayso oo hablaha caarka maalin walba intay dishaan oo xidhxidhaan oo baabaasataan halkaa la soo istaagtaan oo maxaan ku dhahdaa wixii shalay toole alaayden waanu ka dagaalan waxa ka dagaalanteen anagu ma anaan arag waxna lamiidaan wadaagin cuqdad baa meel la soo fadhidaanay tii anaga nagu hagardaamisaan oo nagu dishaan adar manihin anagu dad aamusaya in kurka hore hadii la jaro kubabka meermeer shaban ku dhimanaa inta hadii la jarayo xaqaygii xaq hooyadii kama aamusi doono kamana gaabsan doono annaga aan idhi nootaayada waan saxeexayna nootaayada lacagteeda ana bixiyay in nootaayada qoran cabdimadoob ay igu kalifay nootaayada maanta say soo hor hayso eebay kugu tahay shay mooyin faysalow shay mooyin lafaaga inaad u qajishay hay lafaaga inaad u xishootay hay inaad maanta annaga na tiraado garsoorka la waafajinaya garsoorku wuxuu eegi doonaa waxaan qabno iyo waxay dadku qabaan laamaha garsoorku jananku uma taliya garsoorka isku keenkeen haddii garsoorka laftiisu nadow marin waayana geedna xidid la'aan ma baxo walaalkay ay hooyaday dhashay ayaa hooyadii kinin dabada ula taagnaayo cid u soo gelin weyday waxa weeyaan anagu manihin dad inta la jirqsado la baabiyeeyo ama meesha ka carara ama hoos u hadli kari waayo war dulmiga saldhigyada ka jiro ilaahay nagu iftiiminay dulmiga iyo tacadiga dadka ku haysaan iyo duqaanada iyo dhibaatooyinka saldhigyadiina yaaliya nadaafad darrada ayuu ilaahayna tusayay subxaanahu wa tacaala war afkii ummaddaana waanu hadlaynaa inta annaga nagaadhay baa u saalan waxaa ciidanku sameeyo anshuxumo caynkaas iyo arxandarro caynkaasaba maalin walba ku dhacda haweenkii iyo hooyooyinkii iyo inamadii iyo ragga war waxa weeyaan waxa iyaga annaga marag cad buu yeeshay xarumaha garsoorkaanu la tegaynaa faysal waa dii lagu yidhi hadal oo annaga adiga nalagu soo kaa gudbay xaqayga laguguma gudbi karo nabaradayda laguguma gudbi karo waxa nagu dhacay laguguma gudbi karo waana urbaadaysaa waxa maanaan odhan waanu hadli doonaa waanu calool hadli doonaa waanu hadli doonaa waxa naga raadinaysaan baanu odhan doonaa facebookyada maanta waxay dadku qaadaadhigayeen inaad tidhi waxa iigu argagax badnayd oo iigu naxdin badnayd maalintii qarxii soo badhacay waa runtay degeerida abahay baa ii soo raaci lahayd oo maan joogmaan 12 bilood baan jiro waanan garanaynin maalintaasna maalin qof kasta oo islaam oo damiirli ka damqaday hay maalinta dad iyo ciyaal anaga nagu soo kabaysaan ku tiraadaan ciyaal oo hadla waxa tiraadaan halkaas aan laga raacay anaga ma hataas cidad noon isbaynaysana anaga xidhiid nagama dhaxeeyo cuqdadna anagu ma qabno bulshada Soomaaliyeed naadir ma kala jecelin hadal intaas aan ku soo